وشنا أنا كاسلنا إن الناس نوجينها ناس نوجينها قيمة إلا لها لكن أساس وكل جلسة ما شاء الله إن إكسكلوسيف بريسبين السمايان نحن دوا أبوه بريسا عشان ترى ما شاء الله والله هذا أول أبوك العين لكن هذا أنا حيصير إيموشن تنا هاوي ما يا مكان إنا آدي أبو شقة هنا شغلتي عنه ونكتب لك هو حقيقتي وفضلنا ورسكب مدري ما هذا سفر من الجيان اللي في جولين وروسيا جروب أهنا وسمينا تحافظها جروب وسمينا فجأة وسمينا جروب إسلام سميني لكن ميزان ماشي سكرين وسمينا وهذا زوم وسمينا هذا حسب وسمينا كريتيف سكرين markii la soo gudbiyay loo soo diray dadka waa loo muujiyay la pro shima hada dadka soo jeedo waa biochemistry machine iyo waxa waaye CBC machine oo iyo midway waa mashiinada ugu dambeysay ee lagu isticmaalo sida wasaaradda caafimaadka laga soo jaaray kuleelku said hada tuuga mashiinada kan loogu talagalay standard loogu talagalay maaha SC asuguna kiisa resource program كتبة اسمه وأنا كنت جالس بقول إن شاء الله بقول محتاجين إن نعمل كله لكن سبتمبر دي هتلاقوش كده وماشي لو بيجي أنا بنا عليك خلاص بنا عليك لو بيجي أنا بيجي خلاص أنا بيجي standard في عنه عالي ونسميه temperature سوى controlling دولة سوى عبد يكون فرق مثلا موجود إنها ضار بعمل اسمها أول لما يلفظوا هو في يعني هي spinal cord هو sensory skills هو شكله paralysis ولو كمان يعني ميزان كسب وصفحة. كلام كويس. بس لا كيلو موالو هنا. لا ولا كيلو جاي. أكيد الزيت ولا موالو هنا. أكيد الزيت ولا كلام كحيل. كراتون يكفي. على سؤال أنت كراتون أنا. وعلى سؤال. شو حكى له وين استعمالنا مرة سيستم معين أنا إسبير كابتن أو مش كابتن. هذا هو الغاية إننا ستة صحيح في الويسو سباينا في الويسو مشين ده ويسو حتى مشين ما دام هاي سنة أسد في عنها هاي سنة سكيل سكيل ونص ده وحرجينا نقول نقول وش تيسا أكسجين سالنا ده أكسجين كده لو نطلع مثلا نطلع الأورام ده بين إيه أدري وجد هذا ممكن تختكي لو كان قالي ران اسمه كيسوي مالان يبقى جسد بينه مفيل ران الناس كلها رايحين باشا وطو يقولون بيسي مكان وين استفادنا هنا أدنى سيستم الروتين تياتر ما ومشينا حسري أيضا ماشي حكم الله حبوب الله عزيز الهرم وكان بدنيا حتى هذه الزبدة
mahadcelinayaa qolada maamulka isbitaalka fact xaaladda adag aad ku shaqaynaysaan iyo culayska isbitaalka saaran oo sida hadda warbixintiina aan ka helayo isbitaal 200 kilomitir 100 kilomitir looga imanayo marka laga soo tago xuduudaha inta aad leedahay isbitaalka idinku dhowna uu yahay midka Gaaris iyo Kismaayo iyo Muqdisho qof loo qaado ama Wajeer taas iyadoo aan dareemayo Doobley hadda sida aan ku arkayna culayska saaran ama mujtamaca ku soo qaxay ha noqoto hadda abaarahan iyo duruufta ay keentay ama qaxootiga Ritaaniiska ay la soo celiyay ha noqoto kaalamka ku jira ama barakacayaal goob marba iska taagan oo iyadoo meel xuduud oo dhaqdhaqaaqeedu badan yahay ha noqoto iyo deegaanada ku xidhan waxaan rajaynayaa wixii aan qaban karna inaan qabano wasaaradda iyo dowladdaba waxaa kaloo rabaa inaan baaq u diro hay'adaha caalamiga ah oo ku saabsan isbitaalka Doobley oo hadda maalmo ka hor isbuuc ka hor degmo noqotay ha noqotee iyadoo marka hore culays badan uu saaraa haddana culaysku sii laamayo inay u baahan yihiin in lala soo gaaro kaalmo degdega ama ha noqoto qurbo joogta iyo dadka deegaanka ka soo jeeda ama ha noqoto donorskii hay'adaha caalamiga in laga jawaabo baaqa isbitaalka Doobley oo u baahan dhisid isbitaalkii oo la ballaariyo iyadoo aan maamul ahaan waxaan ka geysanayno daawada iyo dhakhaatiirta intaba iyo qalabka wax walba qalabka ka muhiimsan waxaan hadda arkayay isbitaalka oo aan uga mahadcelinay Dr. Cabdi Caydiid iyo sidii voluntary ahayd markii hore lagu aasaasay haddana inaad moodo hadda spaceyada oo kale tiyaatarka oo kale iyo qaybaha isbitaalka kulli inay yar yihiin iyadoo garanaya Doobley kuleylkeeda haddana inaan u saamaxayn yarida iyo facilitation la'aanta ama air conditionada iyo cilmiga laftiisa wax badan keenaya marka taa waxaan rabaa hay'adaha inay ka caawiyaan barnaamijkaas wixii la geysan karo waan arki doonaa hay'ad kasta oo wax ka qaban karta isbitaalkaas ka geysan karta gacan shardi kuma xidhnaanayso hay'aday u xidhan yahay isbitaalku ma jiro cid kastoo capacity u leh oo isbitaalka shaqadiisa qaban kartaay waxaan rabnaa inay la soo xidhiidhaan qiimaha ay khusayso shaqada isbitaalkaana insha Allah laga geysto waan rajaynayaa annaguna wixii aan maamul ahaan ka geysan karno iyadoon dareemayo shacabka idin maraya gaar ahaan gabdhaha inta badan hadda aan ku arkay meesha jooga jiifa ee qaliinkii lagu sameynayay kuwa hadda aad u dhisaysaan outpatientka iyo sida hadda loogu talagalay intaba culeysyada aan dareemaya haddana waxaan rajaynayaa inaan dalbaaqaasna la qaato wixii aan qaban karno aan ka qabano insha Allah aad baad u mahadsantihiin